السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan ka hor intaynan guda galin muuqaalkani like inoo saar waxaan qaadan doonaa maadadeenii farmakolojiga casharkii 11aad qaybtiisa labaad casharka kani waxaynu ku baran doonaa haddii midkii hore aynu kusoo baranay penicilliniska midkani waxaynu ku baran doonaa daawooyinka loo yaqaano cephalosporins qodobada casharka kani aynu diiradda ku saari doono waxay noqon doonaan marka ugu horeysa inaynu overview ku sameyno daawooyinkani loo yaqaano cephalosporinska qaybsankooda inaynu ka hadalno oo ah definitionska iyo inaynu ogaano qaabka ay u shaqeeyaan daawooyinkani oo noqon doonta mechanism of actionka iyo marka la isticmaalo daawooyinkani kadib waxyeelada ka dhalan doonta oo ah side effectska afartan qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha aynu kaga hadli doono inta uu socdo casharka kani waxaan rajeyn doonaa ilaa dhamaadka casharkani inaad ila gaari doontid insha Allah haddii aynu ku horeyno casharkeena qaybta overview-ga cephalosporins waa daawooyin ka tirsan beta-lactam antibioticska kuwaasoo si qoto dheer loola xiriiriyo inay la mid yihiin penicillins marka la leeyahay waa xaalo la xiriiriyaa si qoto dheer waxa ay iskaga eg yihiin structure-ka iyo shaqadaba sidoo kale waxay leeyihiin mode of action isku mid ah ama mechanism of action-kooda ama qaabkay u shaqeeyaanba waa isku mid inkastoo marka laga hadlayo penicillinska ay kaga duwan yihiin cephalosporinska cephalosporinska ay yihiin kuwa in badan iska caabin kara enzyme-ka ay soo deyso bacteria loo yaqaano beta-lactamase waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin in cephalosporinska ay yihiin daawooyin broad spectrum antibiotics ah ee ka adkaan kara bacteria ha noqoto gram positive ama gram negative bacteria-ba magaca kani ee cephalosporins waxaa laga keenay funguska laga sameeyay daawooyinkani ee loo yaqaano Cephalosporium acrimonium marka kan haddaynu ka hadalno cephalosporinska classification-kooda daawooyinkani waxaa loo qeybiyaa inta badanba 4 qaybood ama 4 generationba iyagoo lagu saleynayo unuglaanshaha bacteria u nugushahay daawooyinkani marka loo qaato iyo iska caabinta daawooyinkani iska caabin karaanba enzyme-ka ay soo deyso bacteria loo yaqaano beta-lactamase afarta generation ee loo qeybiya ayaa kala ah first generation of cephalosporins second generation of cephalosporins third generation of cephalosporins iyo generationka afaraad ee loo yaqaano fourth generation of cephalosporins afartani ayaa ugu waaweyn inta badanna loo qeybiyaa marka laga hadlayo classificationada ay yeelan karto cephalosporinska marka kan haddaynu ka hadalno generation walba daawooyinka soo hoosgala generationka koowaad waxaa soo hoosgala 4 daawo oo kala ah cefazolin cefadroxil cefalexin iyo daawada afraad oo ah cefalexin generationka labaad daawooyinka soo hoosgala waxa ay noqon doonaan 4 daawo oo kala ah daawada koowaad cefoxitin daawada labaad cefborosil daawada saddexaad cefoglar iyo daawada afraad oo noqon doonta ciprofloxacin generationka saddexaad ee cephalosporins waxaa soo gala 7 daawo oo kala ah cefixime ceftazidime cefotaxime cefdinir ceftibitin ceftriaxone halka daawada toddobaad ay noqon doonto ceftazidime halka markaynu fiirino daawooyinka soo hoosgala generationka afaraad ay noqon doonaan 2 daawo oo kala ah cefabime iyo daawada labaad oo noqon doonta cefprop marka halkani laga hadlayo waxaa kaloo jirta generation shanaad ee cephalosporinska ay leeyihiin kaasoo loo yaqaano advanced generation isagana waxaa soo hoosgala 2 daawo oo kala ah ceftorolin iyo daawada labaad ay noqon doonta ceftolozone waxaan filayaa marka kane in generation walba iyo daawooyinka soo hoosgala aad si fiican u wada fahanteen aynu u gudubno marka kane qaybaha kale ee casharka
markani aynu ka hadalno mechanism of actionka ama qaabka ay u shaqeeyaan daawooyinkani sida qaybta overview-ga baynu ku soo sheegnay penicillins iyo cephalosporins waa isku wada mid marka loo fiiriyo dhinacyada qaar waxaana ka mid ahaa mode of actionka ama mechanism of actionkaba haddaba aan ku weydiiyey adigoo dib u raacaya casharkii hore penicillinska mechanism of actionkooda muxuu ahaa hal mar aynu loo soo wada xasuusano kadib aynu isku soo laaban doonaa waxaan filayaa inaad soo wada xasuusateen intii aan xasuusan aniga ayaa ka dabageen doona bal aynu dib u daawano mechanism of actionkii aynu kaga soo hadalnay penicillinska markaan haddaynu ka hadalno qaabka daawooyinkani u shaqeeyaan daawooyinkani waxay fargelin ku sameeyaan talaabada ugu dambeysa ee unuga gidaarkiisa lagu sameeyo iyagoo fargelintaasi u sameyn doona saddexdaani midkood marka ugu horeysa in ay howlgab ka dhigaan penicillin binding protein kaasoo inta badanba door weyn ku lahaa sameynta gidaarka unugaasi qodobka labaad ayaa noqon doona in ay meesha ka saaraan soo deynta enzymeka loo yaqaano transpeptidase kaasoo door muhiima ku lahaa isqabsiga ama cross linkageka ka dhexeeya sokortii iyo peptide chainkiiba ee uu ka samaysnaa gidaarka unuga bakteeriyada qodobka saddexaad ee waxuu noqon doonaa soo saaridda autolysines waa enzymyo ay leeyihiin bakteeriyada qaar sida gram-positive cocci oo kale waxay leedahay enzyme ka noocani kaasoo inta badanba loo adeegsado in lagu burburiyo gidaarka unuga bakteeriyada marka uu noqdo mid duugooba ama uu celidoobaba haddii ay dhacdo marka in penicillins ay fududeyso soo deynta enzymeka kani iyadoo aan waqtigiisa la gaarin ama ay bakteeriyada ma soo sameyn waxay fududeyn doontaa in ay burburto gidaarkii bakteeriyada halkaasina ay ku dhacdoba in ay meesha ku dhimato ama ay koritaankeediiba joogsato bakteeriyadii waxaan filayaa in si fiican aad u fahanteen qaybta tani ee mechanism of actionka ama qaabka ay u shaqeeyaan daawooyinkani loo yaqaano penicillinska sida muuqaalka hadda aad ka soo dheehatay mechanism of actionka penicillinska ay leedahay oo kale ayaa ay cephalosporinskana leeyihiin sidaasi darteed ayaa si qoto dheer loola xiriiriyaa cephalosporins daawooyinka loo yaqaano penicillinska kadib marka uu qaato qofka daawooyinkani cephalosporinska waxa uu isku arki karaa saameyn ah inuu dareemo labolabo matag calool xanuun in qofka uu ka goo cuntadii iyo nabro kaga soo baxa oogada sare ee maqaarka calaamadahani ayaa uu qofka isku arki karaa kadib marka uu qaato daawooyinkani loo yaqaano cephalosporinska waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen waxaa halkan inoogu eeg casharkeeni maanta casharkani casharka xiga intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum